السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديا كسر هذا يوتيوب كينان بدي بري channel مران January 6 سياسة مريكا كمانتا oo ay ku beegan tahay sanad guuradii shanaad ee weerarkii lagu qaaday xarunta Congress-ka ee Mareykanka Capital ee Washington DC ayaa siyaasiyiinta Mareykanku ku kala aragti duwan yihiin sida loo xusuusto dhacdadaas qaar ayaa diiradda saaraya halista rabshadaha siyaasadeed iyo musuqmaasuqa halka qaar kalena ay carabka ku adkeynayaan fashilka amni ee xilligaas dhanka kale heshiis military oo la xiriira Ukraine ayaa dawladda Ingiriiska iyo Faransiisku ay ku heshiiyeen inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan Ukraine haddii heshiis nabadeed laga gaaro dagaalka ka dhaxeeya Ruushka si loo xoojiyo amniga loona ilaaliyo xasiloonida dalka kadib dhanka kale Japan dhulgariir cabirkiisu yahay 6.2 magnitude ayaa ka dhacay gobolka Shimane ee galbeedka Japan ma jirto digniin tsunami ah oo la soo saaray balse hay'adaha saadaasha dhulgariirada ayaa ka digay in dhulgariir kale ay dhici karaan maalmaha soo socda dhanka kale Israa'iil oo duqeymo ka fulisay Lebanon ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo ka fuliyay koonfurta Lebanon iyagoo sheegay inay bartilmaameedsanayaan kooxaha Hezbollah iyo Hamas duqeymaha ayaa sababay barakac qoysas badan oo ku nool deegaanada ay duqeeyeen dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa la sheegay inuu go'aamiyay in la xidho xadka ay Soomaaliya la wadaagto Djibouti kadib eedeymo la xidhiidha falal ka dhana madax bannaanida Somaliland xukuumaddu waxay horey u joojisay duulimaadyada Air Djibouti iyo Hargeysa taasoo loo arko tallaabo hordhac ah sidoo kale wafdi wasiir ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa safar qiimeyn ah ku tagay gobolka Salel iyo Awdal waxaana la filayaa warbixin ku salaysan go'aan kama dambaysa ah oo ku saabsan xidhitaanka xadka dhulka iyo hawada ku guda jirnaa wararkii Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil oo booqasho ku tagay Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Golden Sar ayaa booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kan waa booqashadii ugu horeysay ee uu wasiir sare oo Israa'iil ahi ku yimaado Somaliland booqashadan ayaa timid kadib markii ay Israa'iil ay dhamaadkii December 2025 si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland inay tahay dal madax bannaan intii uu booqashada ku jiray wasiir Sar iyo madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac furitaanka safaarado iyo iskaashi dhinaca amniga ganacsiga iyo maalgashiga ah dawladda Mareykanka diyaaradeeda qumaatiga u kaca iyo helikobtaradeeda ayaa maanta gobolka Saaxil ee magaalo xeebeedda Berbera ku sameeyay dhoolatus baleer daawada waa kuwan Berbera waxa hawada sare ee magaaladaasi dul heehaabaya diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helikobtarka kuwaasi oo ay leeyihiin ciidamada Ameerikaanka ee saldhigoodu yahay magaalada Berbera haddaba waxaa maanta magaalada Berbera hawada sare lagu arkayaa diyaarado ciid ka fara badan oo raxan u socda kuwa halkani dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag u cambaarisay booqashada wasiirka iyadoo ku tilmaantay mid sharci darro ah xadgudubyada madax bannaanida iyo midnimada dalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada Hargeysa ay tahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaana aysan bannaanayn in dal shisheeye uu xiriir rasmi ah la yeesho Somaliland taasoo ka hor imanaysa dastuurka iyo shuruucda Somaliland waxay muujinaysaa dal aanad adigu maamulayn inaad ka hadashaa waa ku ayaan darro dawladda Soomaaliya oo maanta barakicisay shacabkeedii rasaas noolnoolna u adeegsatay baleer daawada halkan daawadayaal war waxaan idinka haynaa caalamka iyo Soomaalida waa naga intaa iska subscribe like iyo share please السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي